casharkan waa casharkii tobnaad ee barashada MS Excel. casharkan waxa ku baranaysaa comments. comments waxa loo yaqaanaa in shayga aad faahfaahin ka bixiso. tusaale ahaan fiiri marka aad meeshan oo kala tagto meelahan oo kale marka aad tagto waa lagu faahfaahinaya waxa ka hoos kaaga soo baxayo waa kana hoos waxa kaaga soo baxay shaygan wax uu yahay waxaas ayaa loo yaqaanaa comment. qaabkee loo sameynaya loo edit gareynaya loo tuuraya loo soo muujinaya casharka intaas ku baranaysaa aan ka hormaro qaabka loo soo gashanayo insert qaabka loo soo darsanaya waxa loo soo darsanaya inaad tagto review data ku jirnay waxa ugu gudbayna review ku dhufatay kadib waxa leedahay halkaas ku dhufanaysaa new comment halkaas dooranaysaa waa kan ku soo baxay ku waxa uu soo qabanaya qofka qoraaga ah ayaa ku soo qabanaya kadib waxa ay soo qabtay hadar balawi halkaas ay waxaad ku qoraysaa marka commentigaaga marka waxa uu cadeynaya salkan waxa uu ay ku dhex jiraan ay u cadeynaya tusaale ahaan waxaan qoray waa tijaabo waa kasa halka marka ku dhufato waa qarsan yahay hadeer calaamadaas gaduud ayaa saaran marka halka ku dhufato ayaa soo muuqanaya kaliya soo kale waxaad isticmaali kartaa shortcut ka ah shift F2 ina xifdiyo kuma qasbin oo waa tagaya halkaas commentiga ayaa bay sheegay wakana insert comment waxa loo jeedaa marka shift plus F2 isla qabo halkaas dooranaysaa kadib waxaad isla qabanaysaa shift F2 wakana mid kale ay soo qoray oo waxa rabo ku qori karaa Excel ka marka cusbay oo midka ka dambeeyay oo 365 Excel ka waxa uu leeyahay notice ayaa lagu soo daray oo waa la update gareeyay laakiin midkan ma lahan okay hadda qaabka loo soo darsanayo waad fahantay qaabka loo edit gareynaya midkan raba in edit gareeyo waa dul tagaya kadib edit ku dhufanaya waa kan hadii wax ka bedelayo ama hadii wax ku darayo waa kaasa waa edit gareeyay sidoo kale waxaad isticmaali kartaa shortcut ka shift F2 halkaas joogtaa waxaad isla taabanaysaa shift F2 waa kana cursor ku joogtaa waxaad ku dari kartaa qaabka loo tuuraya midkaan raba inaad tuuro halkaan dooranaya daleeda leeyahay waa kaas waa intaas kaliya midkaan raba sidoo kale shortcut in isticmaala raba midkaan dooranaya waxaad isla taabanaysaa shift F2 waxa uu ku soo baxay meesha waxa loo qoran lahay escape taabanaysaa kadib delete waa intaas mid kale soo darso fiiri midkaan raba inaad tuuro oo kale marka aan ku celiyo halkaan dooranaysaa shift F2 leedahay cursor waa uu shaqeynaya fiiri diyaar waxa uu yahay in wax lagu qoro waxa dooranaya marka escape dooranaya cursor waa uu joogsanaya kadib delete ayaa leeyahay waa kaasa midkaan ku soo darso marka mid kale midkaan ku soo darso waa kana kuwaan hadda qarsoon oo dhan ina soo muujiyay dhamaantooda halkaas ku dhufanaya marka show all comments waa kana waa soo muuqday aabku loo qaranayo waa kaasa show waa kana hadaan ka qaaday hadaan saaray waa intaas kaliya hadaba waxa ka shaqeeyay quizkii casharkan oo ahaa casharkii 9aad text to column wakan quizkan waxa ka shaqeeyay hal arday si fiican u saxay waa kana marka aan tago groupka ardayga si fiican u saxay waa midkan Maxamed Deere halkaana kaaga hambaleynaya qaabka marka loo shaqeynayo quizkan qaabka loo shaqeynayo waa aad u fududahay adiga isticmaala text column halkaana dooranaysaa waxay leedahay saaraysaa sidii hore soo baratay kadib data ku dhufanaysaa waxaad ka sii dooranaysaa text column kadib definida noo dooran next leeyahay waa kana meesha wax ma dooranaysid marka tabka ay ka qaadaysaa saxda kadib next leedahay kaliya halkaana tirtiraysaa meesha dhigi lahayd ayaad sheegaysaa halkaana raba inaad dhigo kadib finish aad waa kana taariikhda caadiga lambarada waa lagu buuxiyay qaabkaas ayaa lagu shaqeynaya quizkii shalay casharka marka quizkiisa waxa waaye had tagastigan sa u jeedba commentigan waxa leeyahay background asiga automatic uu leeyahay marka waxa ka raba inaad soo sameyso background soo sameey oo balwiga oo kale halkan waxyaabaha waxaad soo gelisaa sawiro ama adiga naqshadaada ku xiran tahay waa inaad background oo leeyahay ka raba sawir ha aado ama color ha aado
waa inaad background usoo sameysaa. kadibna waxaad soo dhigaysaa groupka whatsappka magacaadana soo raacay. qofkii marka ugu bundabato marka muuqaalada konton aan gaarno ayaa abaalmarin doona insha Allah. Waa ku mahadsantahay daawatay muuqaalkan. fadlan la wadaaga asxaabtaada. muuqaalkana like saar, asxaabtaada kalena gaarsiisa ayagana u faa'iideystaan.